هلا والسلام عليكم أصحاب الجنة كحنا أصحاب تسيلي هاي ملفي عيني هاي سو ملفي عنا سيتهين وإن سلامي أصحاب تيدا قصو دوال الجنة كي سومالي باربي هذا كل سبت الجنة بليز سبسكرايب هوسي ده لايك and share إن شاء الله سلام قالي هذا كوسو مرينا هذا نقصو لابني سنة صلاة شوعان وإذا سلامية ويكاكو وناكسن هذا إن شاء الله وك سلامية أصحابتا maanta waxaa rabay inaa ka hadlo arrimaha dhinaca social media ka socoto ku saabsan ragga iyo dumarka waxaa moodaa ragga iyo dumarka Soomaalida sanadadan dambe in la isku diraayo oo maxaa la lahayay waxaa maqli jiray generation hadaa rabtid inaa ciribtirtid ama dhibaato u geysatid dumarkooda iragooda la isku diraa sifo dhalmada loo istaajiyo iyo maxaa la sida wadamadan qurbaha ka socoto kaleetay ragga iyo dumarka kala jeesteen oo dumarka xataa waxyaalaha dumarka la guursanayaan oo raggina ragga la guursanayay najina ka alamaan ilaahina ma tusalaakiin dhibaatooyin badan ah Soomaalida soo wajahayso waqtiga isbedelay adduunkan uu isbedelay podcast aan dhageystay su'aaladan igu soo dhaliyay marka podcastiga aan daaranayna idin fiirinay anigana ra'yideeda gadaalan ugu soo dirsanaa maxaa la hayay marka fiirsana podcastigan ina maxaa la hayay ku raacsana ra'yiga qofkaan hadlaayo nin baa hadlaayo magaciisa ma aqaani ninkaan hadlaayo oday adeerkeena ah waa adeerkan hadlaayo hada ku raacsana ra'yigiisa hadii kaleeta iyo waxyaalaha qaldan iyo waxyaalaha saxsan aan sheegaya insha Allah. I believe this podcast is very important in our dhageysano gadaala idiga sheegi doonaa why important oo tahay this podcast ina dhageysano insha Allah. I got my laptop. You see my little kitty cat message Simba we love you. Simba na halkaas uu naga dhageysanaya insha Allah. laptopkayga furniya waxaan daaranaynaa this little podcast aniga waa soo dhageystay multiple times guys laakiin waa noo daaraya insha Allah. marka ninka halkan ka tagay Afrika gabar u doonanaya gabar aqoon yahanada oo qurux badan intuu ka tago gabadha muxuu ku eedanaya oo ka tagay wuxuu ku eedeynaya at least nolosha wax ka taqaana wuxuu rabaa qof dhaga xiran oo aan wax ka sixi karin oo wax u sheegi karin oo amar siyo rabaa noo kari nadal arinta ah in halkan la aad looga tago oo Afrika la aado si wax ilmo loo soo guursado ma arin oo ka duwan arinta dhalmada mise dhalma raadis ma loo safraya iyadana waxaan ognahay rag badan halkan ka safrayo halkan xaasas iyo carruur u joogto in Afrika u safraan mar walba horta laba qolaa jirta dad phobia ku dhaco waxa jira gabdhahan wadanka jooga wada quruxda badan maanta wuxuu ku leeyahay meeshaan ku istaajinaya waa sax dumarka badana America joogo they are well educated including me you guys aniga YouTube waa isku soo galgalaa laakiin waxbarashada waan jeclahay CV-gayga aad buu u dheeryahay waxyaalo badan aan bartay waxaa isku taraagalay computer science hadhihin waxaa isku taraagalay nursing hadhihin haddana alxamdulillah macallimada ahay shahaadooyin badan oo teaching waa haystaa macalliminimo ma fahanta aniga ugu yaraa halahaas haysto gabdhaha qaarkood PhD ay haystaan gabdhaha qaarkood masters ay haystaan oo weli single ahna aqaana jiro xataa qaarkood waa RNs qaarkood waa doctors qaarkood waa midwives gabdhaha Soomaalida badan wax bay bartaan laakiin cilada taala waxay tahay gabar wax bartay marabtaa nin Soomaali oo waligiis wax barin oo rabo inuu gabadha ku maxallahayay ku dhaqo maskaxda 1950s ama 1920s ka dumarka lagu dhaqi jiray. That's a question also and the other question waxa waayay ninka ragga markuu guursado maxallahayay gabar oo maxallahayay because maskaxdan markay cilmi badan is not expand gabadha laakiin markay cilmi barato wax kasta ogta she knows everything and her brain is expand waxyaalo qaadan karna jirto iyo waxyaalo ay qaadani karto so gabadhan maxallahayay mu jijilcanaaniya mu wanaagsanaaniya ma iska dejinaya maskaxdii oo 1920 lagu dhaqmayay ma ku dhaqmaya maskax oo updated ah
That's the question taalan fahanti. Waxyaalaha ra'yigaagana comment ku soo qoro markuu continue. Aniga I picked up on halahaas hadeerto laakiin waa ka sii hadlaynaa waxyaalaha kale insha Allah. guursada ma joogto maxaa dhacay waxa gabar qurux badan boqolkiina 80 waxa jaamacadaha ka baxa Mareykanka iyo Canada waa gabdho wax bartay waa gabdho boqolkii 80 dadkan doontana waa rag wax raadinay rag waa marka mental waa jiro waa marka ninka halkan ka tagay Afrika gabar u doonanaya gabar aqoon yahanada oo qurux badan intuu ka tago gabadha muxuu ku eedanaya oo ka tagay wuxuu ku eedeynayaa at least nolosha wax ka taqaanaa wuxuu rabaa qof dhaga xiran oo aan wax ka sixi karin oo wax u sheegi karin oo amar siyo rabaa noo kari nadal midka labaadna ma taqaanaa Afrika gabdhaha u doonta waa midka kuwiisa halkan ku dayacay wuxuu ka cararayaa groupkii halkan 7 8 9 halkan uu ku dhalay dadkan wuxuu ugu sheekaynayaa dadka aan ka tagay wax raja male kulligood haye waaya kuwa Afrika ku soo dhalay iyagu raja inta leeg bileeyeen kuwa isaga badbaadin doona soo noo sheegayo sidee wuxuu leeyahay kuwa aan Afrika ku dhalay wax aan ahayn oo raja leh ma jirto kuwaas raja leh waxaan qurbaha ka sameeyay waxba kama jiraan marka kuwa eed lagu eedaynay maxay tahay oo weyn kuwa xagga lagu dhalay kuwa maxay kaga duwan yihiin من اللغة يدغن كجرنيا مسمعنا يكسكون اللغة يدغن كيقان أبنمذي يقانان والدنمذي environment كا يعاوني كواس أوكي لكن كون واحد عاوني ماله رجال ماله هل حب أن رجال كقبك وجرتو لح أسر رجال قيم الله يا مرك لح أسر رجال قدر لين بأمريكا وحكون الله يا لح اسم حكوا يا كندا يا يوروب يكون الله يا لح اسم حكوا أبو ريا لح اسم حكوا كوا وردير ولا أرمى حساسي سومالي كوميونيتي كسار كتاين أيوك هاللي aniga badanaa Soomaali hadaan waxyaalo badan waxa u muleena inay taabuu tahay laga hadli karin laakiin everything qof kasta uu rabo under the rag oo galiyo laakiin waxyaalo socdo u yahay hada this age now that's not gonna happen because there is a podcast as we watched that was a podcast. We got YouTube, Twitter, we got TikTok, we got Instagram, we got بدنا أمد الصوماليات وحي هادو استعمالها يوتيوب and TikTok. محو كهالي رق الصوماليات أو كهالي أو هل كان أنت قبر قرصدان حرور كدالشان عمليح أما تدومر كي دق عرتنا ماشي الماء لكرسان لهايين الماء التربيين لهايين أو محلها قبر عابن لهايين أبو ونقل لهايين أو حسمينيان قبر عرورتي ديرينيان وحير لعق انت أرورصدان بإسكا بحيان هلكا إبسومالي بيوحياديان أفريكا قبر يار بيقورسانيان and then what's gonna happen بكا قبر يار قورستد ويكودا لسا because نين كراكا إلا 60 وكودا لكرا أما باب وكودا لكرا هدوها لقف داليسو وداليا markaasuu xusamina caruur kale intuu dhalo caruurtiisii oo maxallaha ay gabadha ku guursaday oo maxallaha ay intaas sano ee isla noolaayeen markii waxyar intuu samro 5 sano 6 sano u samro ilmaha markii uu weydana si xaajidiisa gaala cadaanka sameeya ilmaha 6 sano 5 sano markii uu samraano high school ay gaaraan uu weynaadaan iga markaas uu iska danaysaa si xaajidiisa isla safri la markaas isla aadila ما سمعنايو وحاواي فارح وحاواي وعليه سامر كيبا كويرو سنة نورشكو أدكاتها ملابس نورشكو أدكاتو محلا بريس كرسك قليل له عنتدا سميسل له كحناقيايو وعريايو أفريكو حسداع قبرير نولك هشيد noloshaas markuu dhaxgalan caruur kale uu dhaxgalayaa marka suxub bilaabaya caruurta kale inuu deeriyo haadana deeri kale ma ahna caruurtii gabadhiyo isku rafaadsan wuxuu bilaabaya caruurtii kale uu deeriyo inuu dhoo kuwana wanaagsan wax ii taab Soomaali bartaan Soomaaliyeed bal caawiya kala xusoo dira ala kulli xaal ani sheekadan horta waa ka helay wuuna ku saxsan yahay wardeere حلها عاوش رق الصوماليات إني إسكدايان أو سو دمر كصوماليات إني أقليستان أي family planning سميستان
the beginning of the video waxaan kasoo hadlay in maxalay society ay yaraan doonto of course Soomaalida hadii gabdhihii hadda caruurta ay yareeyaan dhalmada ay yareeyaan 10 years 20 years from now on Soomaalida way yaraanaysa society way yaraanayaan laakiin waxaa dhici doonto dad quality leh quantity and quality badanaa waxaa waaye wax badan iyo waxyar ka ku fiicano tayo leh marka hadii dhalmada xataa barato gabadhay hadii 2 cunug ama 3 cunug ay dhasho iidi xaajigeeda xataa ama wada jooga ama kala taga caruurtaas way maareyn kartaa maxaa laha ayay way heen kartaa wax way bari kartaa tayan way u yeelan kartaa sida mustaqbalka dalkooda wax ugu taga qabyaaladana badana caruurta waa in laga daayaa qabiil lagu korinin halaasa Soomaalida aniga codsan lahaa gabdhaha jiilka hadda cusub iyo jiilka soo socday jiilka naga horeeyay waxaan ka cabsanaa waxaan ka baryaa qabyaaladii inay iska daayaan oo qabiil dhan ilmaha laga dhicin oo lagu korinin oo maxaan lahayay mustaqbalkooda Soomaalinimadooda iyo waxbarashada oo maxaan lahayay maskaxdooda galiyo lagu baro aan ka codsan lahaa markaas haduu maxaan lahayay faarax lagu baasto uu damco inuu cararo ilmaha gabadhaas way ku filan tahay maxaan lahayay way maareyn kartaa mid gabdhaha Soomaalida waxaan dhiilaa dib maskaxdeena ugu shaqaysiya maxaan lahaay wiil Soomaaliga oo wiilasha qaarkood badanaa maxuma wiilasha way wada fiican laakiin badanaa try inaad self confidence gaaga dhistid waxbarashadaada adiga naftirkaaga dhistid diiniyan iyo maadaba adi dhistid maxaan lahaay caruur 3-4 hadaa dhishid ama 5 hadaa hadaa dhishid kugu filan asxaabta hadalkii ala soo keenaya waa salaamay asxaabta khayra idin rajeynaya hadaa ka heshay fiidiyoyadeeda waxaa ka codsanayaa inaa hoos subscribe noo saartid commentiga ya ra'yadaada nala soo socodsiisa insha Allah inta video kale ku kulmeyno oo idin salaamaya khayra idin rajeynaya assalaamu calaykum